بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك وكرمك يا لطيف. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن أحد كيبا يرغب نعيا عن ملة إبراهيم نبي إبراهيم دينتيسي حقيدا إلا من غف ماهنه qofkaasoo safiha ka jaahil ahaaday nafsahu naftiisa. walaqad istafaynaahu lawallaahi qad xaqiiqaniman istafaynaahu nebi ibraahim doorannay buu yidhi ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ayaan doorannay. wa innahu nebi ibraahimna fi laakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa wanaagsan buu ka mid yahay ee muqarabiinta. id qaala lahu rabbuhu wadkur xusid waqti qaala uu yidhi lahu nebi ibraahim uu ku yidhi rabbuhu allihi aslim hoggaansan nebi ibraahimow. qaala markaasuu yidhi aslamtu waxaan u hoggaansamay lirabbialcaalamiina makhluuqaadkao dhan allihii iska lahaa. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wawasaa bihaa ibraahiimu baniih. wawasaa wuxuu u dardaarmay bihaa diintii ayilmilla ibraahiimu nebi ibraahim baniihi wiilashiisii ayuu u dardaarmay. wa yacquubu yacquubna wiilashiisiiyuu u dardaarmay. wuxuuna yidhi mid walbaaba yaa baniya wiilashaydow in allaha ilaahay isdafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina diinta islaamka ee falaa tamuutunna ha dhimannina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa muslimiin oo hoggaansan aad tihiin maahane. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi am kuntum ma waxaad ahaateen adinka yuhuudda ahi shuhadaa'a kuwa xaadir ahaayoo joogay id waqti miyaad shuhada ahaydeen xadara uu ku soo xaadiray yacquuba nebi yacquub almowtu dhimashadii. id waqti miyaad shuhada ahaydeen qaala uu ku yidhi nebi yacquub libaniihi wiilashiisa maa maxay baa tacbuduuna caabudaysaan min bacdi mowtii dhimashadayda kadib. qaaluu waxay yidhaahdeen owlaaddii nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka allaha ayaan caabudaynaa wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha ilaahoodaan caabudaynaa ibraahiima nebi ibraahim ah aaba'du iyo wa ismaaciila iyo wa isxaaqa ilaahan baan caabudaynaa ilaahaasoo waaxidan keligii ah walxaal baan caabudaynaa naxnu annaguna muslimuuna kuwa u hoggaansamay aan nahay lahu lilaah ilaahay. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka middaasi ummatun ummad weeye ummaddaasoo qad khala tagtay oo hormartay lahaa waxaa u sugnaaday ummadda maa shaygaasoo kasabad ay shaqaysatay walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday maa shaygaasoo kasabtum aad shaqaysateen. walaa tus'aluuna laydinna weydiin maayo cama shay xaggii shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala ummaddaas idinka horraysay sidaan iyagaba loo weydiinaynin waxaad adinku camal fasheen. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen ahlu kitaabkii kuunuu ahaada huudan yuhuud ahaada aw nasaara ama nasaaro tahtaduu waad hanuunaysaane saasay dadka ku yidhaahdeen. qul waxaad tidhaahdaa sayidka moxamed ahow sala allahu calayhi wasalama bal millata ibraahiima bal inaan yuhuud iyo nasaaro noqonno inta iska daysid millata ibraahiim natabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa xaniifan xaaluu yahay nebi ibraahim mid ka iishay diinaha xun oo dhan oo diinta islaamka uu iishay. wamaa kaana manuusa ahaanin nebi ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay u shariig yeelayna kama mid ahayn siduusan uga mid ahayn yuhuudda iyo nasaarada midna. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi quuluu dhaha aamanaa waxaan rumaynay billaahi ilaahay wamaa kitaabna waan rumaynay kitaabkaasoo unsila la soo dejiyey
ilaynaa xaggeennana loo soo dejiyey wamaa kitaabna waa rumayna kitaabkaasoo unsila la dejiyey oo ilaa ibraahiima nebi ibraahim intii kaana loo soo dejiyey iyo wa ismaaciila nebi ismaaciil iyo wa isxaaqa nebi isxaaq iyo wa yacquuba nebi yacquub iyo wal asbaadi awlaaddii yacquub iyo wamaa shay baan rumayna shaygaasoo uutiya la siiyey muusaa nebi muuse iyo wa ciisaa nebi ciise wamaa kitaabna waan rumaynay kaasoo uutiya nebiyuuna nebiyaasha la siiyey kaasoo min rabbihim allahood xaggiisa ka ahaaday laa nufariqu xaal aanaan kala geynaynin bayna axadin axad dhexdii kaasoo minhum iyagii ka mid ah walxaal naxnu annaguna muslimuuna kuwa u hoggaansanaan nahay lahu lilaah ilaahay fain aamanuu hadday rumeeyaan marka kuwaan ahlu kitaabka ahi bimidli maa aamantum bimaa shay hadday rumeeyaan shaygaasoo aamantum aad rumayseen bihi shayga faqad ihtadow way hanuunayaan wain tawallow haddii ay ka jeestaan xaqa aad rumayseenna fa inamaa hum iyagu fii shiqaaqin khilaaf dhexdiisay ku sugan yihiin ay adinka idin khilaafayaan fasayakfiikahum ullaahu ilaahay baana idinka kaafin doona wa huwa ilaahayna assamiicu ilaaha maqlaya weeye aqwaashiinna alcaliimu axwaashiinana og sibqat allaahi waman axsanu min allaahi sibqat allaahi ilzamuu laazima sibqat allaahi ilaahay diinkiisa laazima waman axadkeebaa axsanu ka wanaag badan min allaahi ilaahay xaggiisa sibqatan min sibqatin diinka xaggiisa wanaxnu annaguna caabiduuna kuwa caabudaya ayaan nahay lahu lilaah qul waxaad tidhaahdaa sayidka muxamedahow atuxaajuunana ma waxaad nugula doodaysaan fillaah fii towxiid illaah ilaahay towxiidkiisa walxaal huwa ilaahayna rabbunaa allehen uu yahay wa rabbukum allihiinna uu yahay walanaa waxaa noo sugnaaday annaga muslimiinta acmaalunaa camaliyaasheenna walakum adinka gaaladana waxaa idin sugnaaday acmaalukum camaliyaashiinna qolo walbaba waxay la yimaadaan yaa lagu abaalmarinayaa wanaxnu annaguna mukhlisuuna kuwa cibaadada u gaar yeelaya ayaan nahay lahu lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi am taquuluuna ma waxaad leedihiin ina ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila iyo wa isxaaqa iyo wa yacquuba iyo walasbaada ambiyadaasi kaanuu waxay ahaayeen huudan yuhuuday ahaayeen miyaad leedihiin aw nasaara mase nasaaro ayay ahaayeen ma sidaasaad leedihiin qul waxaad tidhahdaa sayidka moxamed ahow a antum adinka miya aclamu og axwaashooda iyo diinkooda kuwaas am illaahu mase ilaahay baa og ilaa ilaahay waa ka beri yeelay yuhuudnimada iyo nasaaranimade qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan ay laa axada adlamu qofka dulmi badani ma jiro miman mid xaggii kaasoo katama qariyey shahaadatan marag ayuu qariyey shahaadadaasoo cindahu isaga agtiisa shahaadadaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wama allaahu ilaahayna ma ahan bikaafilin mid halmaansan camaa shay xaggii shaygaasoo tacmaluuna aad camal falaysaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka middaas dadkaas la soo xusayo oo maaragta hore loo soo sheegay ummatun ummad weeye ummaddaasoo qad khalad ay sabaqad hormartay oo tagtay lahaa waxaa u sugnaaday ummaddaas maa jazaau maa shay abaalkii shaygaasoo kasabad ay shaqaysatay walakum idinkana waxaa idin sugnaaday maa jazaau maa shay abaalkii kaasoo kasabtum aad shaqaysateen walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa shay xaggi shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala casharkeennu maanta laba qaybood weeye qaybta hore munaasabadeeda casharkii hore uu la leeyahay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam aahartiisiyaa laga soo hadlay iyo wanaagyaashiisii ducadii uu maka u duceeyey oo uu ilaahay u baryey magaaladaas iyo ehelkeeda iyo dhismihii uu kacbada dhisay waxyaabahaas oo dhan ayaa horena lo kaga soo sheekay oo casharkii hore awaakhirtiisii aan ku soo marnay haddana waxaa halkan casharku ku tacalluqaa oo uu ka bilaabanayaa atawbiikhu shadiid lilmukhaalifiina limillati alkhaliil yuhuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta khilaafay diintii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaa kaloo ayaddu ay tilmaamaysaa oo casharka bilowgiisa ku cad diinta nebi ibraahim oo toosan
cid ka leexata oo diidaahi inaysan jirinin ilaa qof markii horeba naftiisa aan ogeyn inay tahay makhluuqatun licibaadati rabbihi midaan ogeyn maahane oo safiihe oo naftiisaba jaahil ka ah waxa loo abuuray maahane cid kale inaysan nacaynin. waxaa kaloo casharka uu ku tacalluqaa wasiyadii nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi yacquub ay owlaaddoodii u dardaarmeen in ilaahay u doortay subxaanahu wa tacaala diinta islaamka oo ay kula dardaarmeen falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. waxaa kaloo casharku ku tacalluqaa yuhuudda ayaa waxay ku yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam yacquub markuu owlaaddiisii oo u dardaarmayey yuhuudnimo kala dardaarmay yidhaahdeen, yuhuudnimo ayuu kala dardaarmay. markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha qur-aanka oo casharka ku jira qaar ka mida ku soo dejiyey am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt, ma waxaad joogteen markii yacquub uu dhimanayey oo wiilashiisa u dardaarmayey markuu weydiiyey uu yidhi maa tacbuduuna min bacdi, maxaad caabudaysaan? oo markaas ay yidhaahdeen waxaan caabudaynaa allaha iyo aabaa'dii kaa horreysay oo ambiyada aheed allahood ayaan caabudaynaa, isagaana u hoggaansamaynaa. taasna waan arki doonnaa aayadaha ku tacalluqa. jihat almunaasaba lama dakara tacaala, ilaahay markuu xusay ma'aahir alkhaliil, nebiyullaahi khaliil ibraahiima, nebi ibraahim ah ma'aahirtiisii, wanaagiyaashiisii iyo raadadkiisii, iyo wa qisata binaa'ihi markuu ilaahay xusay qisata binaa'ihi nebiyullaahi ibraahim dhisidiisii lilbeyti kacbada u dhisay qisadeedii, beytkii alcatiiqi ee qadiimka ahaa, minaara altawxiidi, towxiidka minaaradiisa ahay, astaanta towxiidka. acqabahu wuxuu la cirbisiiyey ilaahay bitawbiikhi, canaan haydartayn, tawbiikhi ashadiidi ee daraa, lilmukhaalifiina kuwa khilaafayna la haydartaynayo limilati alkhaliil, nebiyullaahi ibraahim diintiisa, kuwaasoo min alyahuudi yahuudda ah iyo wاnasaara iyo wاlmushrikiina gaalada noocyadoodii. waakada ilaahay wuxuu xoojiyey annahu shaniye laa yargabu inuusan ka jeesanaynin oo uusan nacaynin can milatihi nebi ibraahim diintiisa ilaa kullu shaqiyin, mid dhul darsaday maahane, kaasoo safiihi ra'yi, ra'yigiisuna uu safiih yahay oo ra'yiga xaggiisana sawirka ah, kaasoo khafiifi alcaqli, caqligiisuna uu yar yahay, kaasoo mutabicin raacay likhadawaati shaydaani, shaydaanka tallaabooyinkiisa. qofkaas unbaa ka leexanaya maahane qof kale ka leexan maayo diinta nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi waman yargabu, waman axadkeebaa yargabu ka jeesanaya oo nacaya can milati ibraahima, raqibada maadadan ficilkan maadadiisu hadduu wasfi yahay iyo haddii uu masder yahay iyo hadduu ficil yahay, hadduu mudaaric yahay, hadduu maadi yahayba, laba macnou ku yimaadaa sida qaalibka ah, almaxaba waalbuqdu. waxaana lagu kala saaraa xarfuljarka ka dambeeya, fii hadday ka dambayso waa maxaba, raqiba fiihi wuu jeclaaday bay noqonaysaa, can hadday ka dambaysana waa nicitaanka, buqdiga weeye. marka man yargabu, man axadkeebaa yargabu nacaya can milati ibraahima, nebi ibraahim diintiisii xaggeeda, ilaa man qof maahane qofkaasoo safiha, safihada, safahadu asafahu alkhifa waa caqliyaridaa la yidhaahdaa safaha, laakiin haddeer macno kalou ficilkaani leeyahayo safiha bimacnaa jahila weeye. maxaa yeelay markii uu safahi asalka aha yahay mafcuul ma qaadan karo, haddeerna mafcuula daba jooga, min baabi tadmiin ayaa la yidhahdaa. ficil kale macnihiis yaa la uurgeliyeyo ilaa man safiha, ilaa man jahila wey macnaheedu. man safiha qof ka jaahila maahane nafsahu naftiisa, oo wuxuu jaahil ka yahay naftiisu inay tahay makhluuqatun licibaadati rabbihi, wamaa khalaqtu اljinna waاlinsa ila liyacbuduuni, qof ka jaahila maahane qof kale diinta nabi ibraahim ka leexan maayo. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi walaqad istafaynaahu, lawallaahi qad xaqiiqaniman istafaynaahu, nebiyullaahi ibraahim aan doorannay buu yidhi ilaahay, fi dunyaa adduunyada dhexdeeda, khalqiga kalaa laga doortay, waxaa loo doortay rasuulnimada, nebinimada iyo imaamnimada, intaba waa loo doortay. wuxuu ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala abulambiyaa, ambiyada badankoodu waxay ka yimaadeen farcii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam.
wainahu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ayaan dooranay buu yidhi ilaahay intaasaana loo doortay biاrisaala wاlnubuwa wاlimaama wainahu nabi ibraahimna fi laakhirati aakhira dhexdeeda la min asaalixiina kuwa wanaagsan oo saalixiinta ah oo ilaahay agtiisa laga soo dhoweynayo darajooyinka sare leh yuu ka mid yahay. id qaala lahu rabbuhu aslim udkur xus id waqti qaala uu yidhi lahu nabi ibraahim uu ku yidhi rabbuhu allihi aslim hoggaansam oo ilaahay amarkiisa u hoggaansan. qaala markaasuu wuxuu yidhi nabi ibraahim aslamtu waxaan u hoggaansamay lirabbi alcaalamiina makhluuqaadka oo dhan maaligoodii allihii iska lahaa khalqiga yaan isu dhiibay amarkiisa xukumkiisaan u khuduucay oo waan isu dhiibay. wanaagga ilaahay nabiyullaahi ibraahim siiyey yay ka mid tahay amar qaadashadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mid a khayraadkiisa nabiyullaahi ibraahim wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquub wawasaa wuxuu u dardaarmay bihaa diintii ibraahiimu nabi ibraahim baniihi wiilashiisiibuu u dardaarmay wiilashii uu asagu dhalay oo ismaaciil iyo isxaaq ahaa inta kalena hadde faracooday noqonayaane. wayacquubu yacquubna wuu u dardaarmay oo wuxuu u dardaarmay isaguna baniihi wiilashiisii. yacquubdu waxay ku cadfan tahay ibraahiimuda mafcuulkii markaa ibraahiimuda mafcuulkeedii baniihi ahay oo kala ka go-an min baabi xadfi ثaani lidalaalati اlأwal wey. wasaa bihaa ibraahiimu baniihi wayacquubu baniihi isaguna wiilashiisow yacquub u dardaarmay owlaadiisii oo diinta nebi ibraahim inay raacaan ayuu u dardaarmay sida nebi ibraahimba owlaaddiisa ugu dardaarmay diintiisa inay qaataan. dardaarankiina waa kan yaa baniya wiilashaydow ina allaha ilaahay isdafaa lakum adinka wuxuu idiin doortay addiina diinta islaamka ayuu ilaahay idiin doortay. nebi ibraahim iyo nebi yacquub mid walbaba wiilashiisuu saas ku yidhi. falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa hoggaansan aad tihiin maahane islaamnimada ku sugnaada ilaa geeridu idinsoo haleesho idinkoo islaamnimadii haysta. dardaarankii labada nabi ay u dardaarmeen owlaaddoodu dardaarankaas wanaagsan u ahaaday. am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt aayaddan sababu nusuulkeeduna sidaan hore uu soo baraarujinnay yuhuudda waxay u yimaadeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay yidhaahdeen yacquub markii uu mowdku u yimid ayuu wuxuu maaragtay u dardaarmay owlaaddiisii inay yuhuud noqdaan. sidaas dardaarankaasaan haysannaahay yidhaahdeen oon ku dhegannahay sidaa darteed diintaada qaadan mayno. markaas aayadahan ilaahay soo dejiyey uu ku radinayo alle subxaanahu wa tacaala qoladaas qaa'iliinta. am kuntum ma waxaad ahaateen shuhadaa'a kuwa joogay oo xaadiriin ahaa id waqti miyaad xaadiriin ahaydeen xadara uu ku soo xaadiray yacquuba nebi yacquub almowtu dhimashadu ma waxaad joogteen nebi yacquub markii uu dhimanayo oo dardaarmayey. id waqti miyaad joogteen idda hore ka bedel qaala uu ku yidhi nebi yacquub libaniihi wiilashiisu wuxuu ku yidhi maa maxay baa tacbuduuna caabudaysaan min bacdi mowtii dhimashadayda kadib. maa tacbuduuna ma tacbiirkaas ah waxaa ku jira laleeyaha munaasabadu waxay tahay zamankaasaa wuxuu ahay zaman maaragtay caabudidda ilaahay keyrka uu badan yahay markaasuu tacbiirkii wuxuu ka dhiga tacbiir caama laakiin iyagaa waxay caddaynayaan ilaaha xaqa inay caabudayaan oo wax kale islaan caabudayn. qaaluu waxay yidhaahdeen owlaaddii nacbudu waxaan caabudaynaa ilaahaka allaha ayaan caabudaynaa wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha ilaahoodana waan caabudaynaa. ibraahiima nabi ibraahim ah aabbayaashu iyo wa ismaaciila iyo wa isxaaqa ilaahan baan caabudaynaa. ilaaha kadii horeo mafcuulu nacbudu aheedaa laga bedelayaa. ilaahan baan caabudaynaa ilaahaasoo waaxidan keligii ah huwa allaahu rabu lcaalamiin. meeshan markii ay aabaa'da sheegayeen owlaadu yacquub waxay aabaa'dii ku soo dareen nebi ismaaciil. nebi ismaaciilna haddee nebi yacquub aabaa'diisa kuma jiro isxaaq uu la dhashay asagu. nebi ibraahim wiilashii uu dhalay yaa waxay ahaayeen ismaaciil iyo isxaaq. isxaaqa wuxuu dhalay markaas yacquub
yacquub yuusuf oo dhalay sidaasay ambiyadu isu dhaleen marka aabaa'da markii ay sheegayeen awlaadu yacquub ismaaciil yay ku soo dareen lianna alcamma bimansilati alab adeerku wuxuu joogaa meesha aabbaha oo aabbuu xisaaban yahay saasay ugu soo dareen ilaahan baan caabudaynaa allahaasoo waaxidan keligii ah walxaal baan caabudaynaa naxnu annaguna muslimuuna kuwa u hoggaansan aan nahay lahu lilaah oo ilaahay adeecsan subxaanahu wa tacaala berina ka ah shirkiga qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka middaasi durriyadaas wanaagsan oo sidaas dardaarankaas wanaagsan uu la dardaarmay nebiyullaahi yacquub tilka middaasi ummatun ummad weeye nebi ibraahimba nebi ibraahim iyo nebi yacquub iyo awlaaddiisii uu la dardaarmay oo dardaarankaas wanaagsan qaatay yaa la ishaarayaa tilka middaasi ummatun ummad weeye ummaddaasoo qad khalad tagtay ummad tagtay weeye laha waxaa u sugnaaday ummaddaas maa kasabad wixii ay shaqaysatay hawaabu maa kasabat ama jazaau maa kasabat calaa xadfi mudaafin wixii ay shaqaysatay ajarkeeda ayay leedahay ummaddaasi walakum idinkuna waxaad leedihiin maa kasabtum jazaau maa shay abaalkii baad leedihiin hadduu xun yahay hadduu fiican yahaba shaygaasoo kasabtum aad idinku shaqaysateen walaa tus'aluuna laydinna weydiin maayo camaa shay xaggii shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen ummadda tagtay yacmaluuna kuwa camal fala maalinta qiyaamaha camalkoodii adduunyada laydin weydiin maayo iyagana la weydiin maayo camalkiinna naf walbaaba mas-uuliyaddeeda yay xamilaysaa ay qaadaysaa weeye ee naf kale dembigeed shaqo kuma lahan waqaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu casharka qaybta labaad weeye qaybta labaad munaasabadeedu waxaa weeye nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam diintiisii toosneed yuu ilaahay noo soo sheegay wuxuu kaloo ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala diintaas toosan ee nebi ibraahim cid sawiraa maahane oo juhalaahe inaan cid kale nacaynin intaasuu hore noogu soo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala casharka qaybtiisaan kale wuxuu ku tacalluqaa waxyaabaha baadilka oo ay sheegtaan yuhuuddu oo ah maaragtay hanuunku inuu ku sugan yahay yuhuudnimada iyo nasaaranimada wixii ka soo harayna ay yihiin baadil oo islaamnimada aan lagu hanuunaynin waxyaabahaas baadilka ah oo ay sheegeen yaa lagu radinayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu halkaa nooga sheegaya waxaa kaloo ku jira oo aan arki doonaa diinta xaqa ah oo in la qabsado ay maaragtay ay toosan tahay inay diinta islaamka tahay iyaduna diinu jamiici alambiyaai waalmursaliina ay tahay noocaas taasna waan arki doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sibqat allaahi waman axsanu min allaahi sibqa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi munaasabadan wax yar ku leexdo lamaa dakara tacaala ilaahay markuu xusay anna millata ibraahim nebi ibraahim diintiis hiya iyadu millatu alxaniifiyati middii toosneed inay tahay diinteedii assamxa ee sahlaneed wa anna man lam yu'min biha qofkaan rumayn waraqiba canha oo naca oo ka jeesta xaggeeda faqad balaqa inuu gaaray addirwata fooddi alculya ee koraysay taasoo fi ljahaalati jaahilnimada iyo wasafaahati sawirnimada dhexdeeda meesha ugu sarraysay jahli iyo sawirnimo inuu ka joogo qofkii diinta nebi ibraahim diida intaas markuu ilaahay noo soo xusay dakara tacaala ilaahay wuxuu xusay maa shaygaasoo calayhi dushiisa yihiin ahlulkitaabi kaasoo min adacaawa sheegashayaal ah dacaawadii albaadilah ee baadilka ahayd taasoo min zacmihim ahlu kitaabka sheegashadooda ay sheeganayaan ana alhidaayata hanuunku fi itibaaci alyahuudiyati yahuudnimada iyo wanasraaniyati nasraannimada raacitaankooda inuu ku sugan yahay sheegasho ay sheeganayaan ee baadilka ubayana wuxuu kaloo ilaahay caddeeyey anna tilka taas dacwa ee sheegashadaah lam takun inaysan ahaanin can daliilin daliil xaggi aw shubhatin ama shubha xaggeed bal hiya iyadu mujaradu juxuudin diidmo keeda la dhartiray weeye iyo wa cinaadin wa mujaradu cinaadin madax adayg keeda la dhartiray weeye uma caqaba dalika haddana ilaahay wuxuu la cirbisiiyey bianna diina alxaqa diinka xaqaahi huwa isagu fi tamasuki qabsashada dhexdeeda bilislaami islaamnimadana la qabsado xaqa ku ihi diinu jamiici alambiyaai waalmursaliina inuu yahay nebiyaasha iyo rususha lasoo diray dhammaantood diinkoodii oo dhammaantood diintaas islaamkay haysteen weeye yuhuudnimada iyo nasraannimada nabi haystay ma jiro
oo yuhuuddu beenay sheegayaan iyo nasaaradu walba. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen kunuu qaaluu ahlu kitaabkii baa leh qaaluu yuhuuddii baa waxay yidhaahdeen kunuu ahaada huudan yuhuud ahaada nasaaradiina waxay yidhaahdeen waxaad ahaataan ow nasaaro marka waa labada qaybood min baabi taqsiim weeye waa loo qaybinayaa. yuhuuddu waxay yidhaahdeen kunuu huudan nasaaraduna waxay yidhaahdeen kunuu nasaara tahtaduu waad hanuunaysaan. qol walbaba saasay leeyihiin oo waxay ugu yeerayaan diinkoodii qallocnaayo dadka ugu yeerayaan qolo walbaaba. qul waxaad tidhahdaa sayidka moxamed ahow bal millata ibraahim bal natabicu waxaan raacaynaa annagu millata ibraahim nebi ibraahim diintiisaan raacaynaa maahane diinta yahuudiyadda iyo midda nasaarada midna raaci mayno. xaniifan xaal uu yahay mid iishay nebi ibraahim can jamiici aladyaani albaadila ila diini alqayim diinka toosan ayuuna u iishay. xaniif waa mid iishay wey maa'ilan can iladyaani kulliha ila diini alqayim diinka toosan xaggiisa ayuu u iishay. wamaa kaana mana uusan ahaanin nebi ibraahim min almushrikiina kuwa u shariig yeela ilaahayna kama mid ahayn. mushrikiintu waxay leeyihiin annagu naga mid ahaa nebi ibraahim, yuhuudduna waxay leeyihin annagu naga mid ahaa, nasaaraduna waxay leeyihiin annagu naga mid ahaa. ilaahay baa ku beeniyey subxaanahu wa tacaala inaan labadooda diintoodana la raacayn nebi ibraahimna uusan mushrikiinta ka mid ahayn yaa ilaahay halkan noogu caddeeyey. bal kaana mu'minan muwaxidan wuxuu ahay mu'min ilaahay waxiday subxaanahu wa tacaala. waxyaabaha ay sheeganayaan ahlu kitaabkuna wax jira maahan, waddada ay ku joogaanna waa waddo khaldan weyn. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi quuluu dhaha aamanaa waxaan rumaynay billaahi ilaahay. dadka mu'miniinta ah yaa ilaahay ku amray sidaan. quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waxaan rumaynay billaahi ilaahay. wamaa kitaabna waan rumaynay kitaabkaasoo unsila la soo dejiyey ilaynaa annaga xaggeennana loo soo dejiyey oo qur'aankii ah. wamaa kitaabna waan rumaynay kaasoo unsila loo soo dejiyey ilaa ibraahiima nebi ibraahim wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba iyo wal asbaadi owlaaddii yacquub asbaadda oo ambiyada laga soo dhex saaray iyagoo dhan wixii loo soo dejiyey waan rumaynay. wamaa kitaabna waan rumaynay kaasoo uutiya la siiyey muusa nebi muuse iyo wa ciisa nebi ciise oo towreed iyo injiil ah. wamaa kitaabna waan rumaynay kaasoo uutiya la siiyey annebiyuuna nebiyaashii kaasoo min rabbihim allahood xaggiisa ka ahaaday. ambiyadii oo dhan oo inta la soo sheegay iyo kayrkoodba ah wax alla wixii kitaabahoo lagu soo dejiyey waan rumaynay. laa nufariqu xaal annaan kala geynaynin bayna axadin axad baynkii kaasoo minhum iyagii ka mid a annagoon iyaga kala geynaynin sida ay yuhuudda iyo nasaaradu u kala geeyeen. kala geyntu waxaa weeye inaad qaar rumaysid qaarna beenaysid ood ku gaalowdid walciyaadu billaah. sidaasay sameeyeen yuhuudda iyo nasaaradu. marka sidaasoo kale annagoon samaynayn yaan dhammaantood wada rumaynaynaa iyaga iyo kutubtii loo soo dejiyeyba rusushaas. wanaxnu annaguna lahu lilaahi liamri illaah ilaahay amarkiisa muslimuuna kuwa u hoggaansan ayaan nahay oo xukumka ilaahay u khuduucsan. sidaas ku dhaha yaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. fain aamanuu hadday rumeeyaan marka ahlu kitaabkii hadday rumeeyaan bimili maa aamantum bihi bimili iimaanikum oo milida haddii la daayo la yidhaha zaa'ida maahan maada dambe masdariya ka dhigaysaa. bimili iimaanikum rumayntiinna oo kale haddii ay rumeeyaan faqad ihtadow. haddii la yidhaha milidu waa zaa'idna fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa ay bimaa shay hadday rumeeyaan kaasoo aamantum aad rumayseen bihi maaga faqad ihtadow way hanuunayaan. ahlu kitaabku mu'miniintu waxay rumeeyeen oo xaqa ah haddii ay rumeeyaan waxay ku hanuunayaan xaqa sida mu'miniintuba ugu hanuuneen. wain tawallow haddii ay ka jeestaan xaqa aad rumayseenna fa innamaa hum iyagu waxay ahaadeen fii shiqaaqin khilaaf dhexdii idin khilaafsan yihiin. waxay doonayaan khilaafkiinna iyo cadaawaddiinne xaqdoon ma aha. sidaasaa ilaahay xukmiyey subxaanahu wa tacaala. halkaana nabigaa loogu bishaaraynayaa sala allahu calayhi wasalama in ilaahay ka kaafinayo kuwaas khilaafka ku sugan oo maaragtay muslimiintii waddadoodii ka leexday
shartooda iyo dhibkooda ilaahay ka dhowrayo. fasayakfiika waxaa kaa kaafin doona hum iyagii allaahu ilaahay baa kaa kaafin doona oo dhibkooda kaa xifdinaya. wallaahu ilaahayna asamiicu ilaaha maqlaya weeye, alcaliimu yacni waxay ku dhawaaqayaan ilaahay wuu maqlaya, alcaliimu haddana og waxay qalbiga ku hayaanoo dhagarta iyo sharta ah oo aysan afka uga dhawaaqaynin. sibqat allaahi waman axsanu min allaahi sibqah wanaxnu lahu caabiduun. kelimadan sibqat allah oo mansuub hadda way kor dhigan tahay, sidaasaana qur-aanka lagu akhriyey. marka inay mafcuul mudlaq macnawiya tahay oo aamanaadaas ay ku camal falayso waa lagu sharxaa. aamana waan rumayna billaahi, sibqat allaahi ilaahay rumayntiisa uu macnuhu noqonaya. markaas ficilkaas horey xoojine oy ku macno tahayo waa masdar mafcuululmudlaq macnawi ah oo aan ficilkii caamilkiisii ku lafdi ahayn. waxaa kaloo lagu sharxaa inay tahay min baabi aliqraa' oo ilzamuu laazima sibqat allaahi oo markaas ficil go-aan lagu nasbiyo. kelimada daatadeeda marka la yidhaha taas waa icraabka xaggiisee sabqi ay ka timid, rinjiyeyn dharka iyo marka rinjiga la marinayo yaa halkaasay ka timid. waa kelimo mushaakala ku timid oo mushaakaladu waxaa weeye nasaarada waxay samay jireen caruurtu markay yaryar yihiin biyo midab leh oo la yidhaahdo midabkooda wuxuu ahaa midab jaallaho asfara yay canuga dalaq ku siinayaan. markay dalaq ku siinayaanoo ka soo bixiyaanay waxay leeyihiin wuxuu noqday nasraani xaq ah oo dhaba, saasuu nasraani ku noqday. biyahaasna waxaa la yidhaahdaa almacbuudiya yaa biyahaas la yidhaahdaa oo ay samaysteen. marka maadaama sidaas ay samaysteen oy diin uga dhigeen in biyahaas la tiimbiyo qofka, yaa sabqigii laftiisii yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabiray min baabi almushaakala la yidhahdaa, laakiin hadda waxaa loola jeedaa waa diin weeye. sibqat allaahi diin allaahi weeye. marka ficil go-aan ku nasbiyo waxaad tidhaahdaa ilzamu laazima sibqat allaahi ilaahay diinkiisa, diinka ilaahay laazima. tacbiirkaas ilaahay uu sabqiga ka cabiray qofka mu'minka qalbigiisa diinku galaa. marka diinka qalbigu wuxuu u dheehayaa sida rinjigu marada la mariyo oo u dheeho uusan maaragta u faaruqaynin. marka waa bishaaro dadka mu'miniinta loogu bishaaraynayo diinkooda inuu qalbigooda u dheehayo sida midabku maaragtay ama rinjigu oo u dheeho dharka la marinayo. laakiin min baabi almajaaz weeye, sidaas markii la yidhaahdana min baabi almajaaz ayay noqonaysaa. sibqat allaahi ilzamu laazima sibqat allaahi ilaahay diintiisa. waman axadkeebaa axsanu ka wanaag badan min allaahi ilaahay xaggiisa sibqatan min sibqa diinka xaggiisa cid ka wanaagsani ma jirto. nasaaradu waxay dadka diinka uga dhigayaanna diin maahane diinka ilaahay unbaa xaq ah, isagaana wanaagsan weeye. wanaxnu anaguna caabiduuna kuwa caabudaya ayaan nahay lahu lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala, mana caabudayno axad ka soo haray alle. qul waxaad tidhaahdaa sayidka muxamed ahow atuxaajuunana ma waxaad nuguna doodaysaan adinka reer bani israa'iila fillaah fii sha'ni illaah, ilaahay sha'nigiisa miyaad nugula doodaysaan adinkoo sheeganaya inaad tihiin ilaahay kuwa jeclay ambiyadanu cid kale aysan ka imaanaynin. zacmigaas aad sheeganaysaan oo aad ku jirtaan idinkoo ku jira miyaad ilaahay nugula doodaysaan subxaanahu wa tacaala. walxaal huwa ilaahayna rabbuna allehen uu yahay iyo wa rabbukum allihiinoo dhammaanteenan addoommo u nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. walanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalyaasheenna, walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum camalyaashiinna. macnuhu waxaa weeye qolo walbaba wixii ay la timaado ayaa lagu abaalmarinayaa. wanaxnu anaguna mukhlisuuna kuwa u gaari yeelaya ayaan nahay cibaadada lahu lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waxyaabihii lagu radinayey yay arrintaanina ka mid tahay aayaddan oo ay tilmaamayso, maadaama ay yidhaahdeen cidaan yuhuud noqonin. yuhuudda waxay yidhahdeen cidaan yuhuud noqonin ma hanuunayso. nasaaraduna waxay yidhahdeen cidaan nasaaro noqonin ma hanuunayso. marka ambiyadii ay iyagu ka soo jeedeen oo nabi ibraahim iyo ambiyadii ka dambeydaa ma waxay ahaayeen yuhuud? waa kuwa le yuhuud ay ahaayeen, mase waxay ahaayeen nasaaro? waa maya, intaas midkoodna ma ahayn. markaa kadibaa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga wuxuu u laqinayaa sala allahu calayh wasalam xujadu uu kula xujootami lahaa oo uu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadaas
yuhuudnimo iyo nasraannimo waa uu ka beri yeele ma allihii dhammaan abuurtay baa og mise idinka. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi am taquuluuna ma waxaad leedihiin ina ibraahiima nabi ibraahim iyo waismaaciila iyo waisxaaqa iyo wayacquuba iyo walasbaada kaanuu waxay ahaayeen yuhuudan. idinka nasaarada ahlu kitaabka ahi ma waxaad leedihiin waxay ahaayeen yuhuud ow nasaara amase nasaaro. qul waxaad tidhahdaa sayidka muxamedow a antum idinka miyaa aclamu og diinkooda am illaahu mase ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala. ilaahayna wuxuu caddeeyey nebiyullaahi ibraahim iyo ambiyadii ka dambeydaba inay beri ka yihiin yuhuudnimada iyo nasraannimada aad ku tilmaamaysaan. maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima. sidee baad marka u sheeganaysaan inay maaragtay diinkiina ku sugnaayeen wey haddii ilaahayba ka anfiyey subxaanahu wa tacaala. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu. aayaddaanina waxay ka hadlaysaa ahlu kitaabkii kitaabihii towreed iyo injiil bishaaradii ay dhigayeenoo nabiga loogu bishaareeyey sala allahu calayhi wasalam in aakhiru zamaanka lasoo bixinayo, sifaadkii uu lahaa, in la amray inay raacaan nabigaas markii lasoo bixiyo. waxyaabahaas oo dhan ay qariyeen qoladii tiqiinay. kuwaasaa marka waciidkan shadiidka ahi oo ku socdaa. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu ay laa axadda qofi adlamu midka dulmi badan ma ahan miman mid xaggi kaasoo ka tamaqariyey shahaadatan shahaaduu qarshi, shahaadadaasoo cindahu isaga agtiisa ahaatay, shahaadadaasoo kaa'inatin ka ahaatay min allaahi ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala. allaha baari ah shahaadadii uu soo saaray oo ambiyadii horeo dhan inay islaamnimada ku sugnaayeen oo mid yahuudiya iyo mid nasraaniya midna uusan ku jirin, nebiyu aakhiri zamaan lasoo bixinayo, in la raacaahi ay waajib tahay, sifaadkiisu ay yihiin sidii ilaahay ugu tilmaamay kitaabihii hore nabiguna uu ugu sifoobay sala allahu calayhi wasalam. waxyaabahaasoo dhan dadkii yaqiinay oo kitaabahaas haystay towreed iyo injiil ayaa qariyey. marka cid ka dembi badani oo ka dulmi badani ma jirto yaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. wama allaahu ilaahayna muusan ahaanin bikaafilin mid halmaansan camaa shay xaggii shaygaasoo tacmaluuna aada camal falaysaan. aayaddan meelo badan ayaa qur'aanka lagu soo celceliyey. sababta loogu soo celcelinahina waxa ay tahay limaa fiiha min alwacdi waalwaciid. waciid shadiida ayaa ku jira. abu xayaan mufasirkaas abu xayaan wuxuu leeyahay walaa ta'ti اljumlaةu ilaa caqiba irtikaabi macصiyatin. macsi markii la sameeyo unbaa jumladaas la tilmaamaa. marka waciid shadiida ayaa ku jira. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka midaasi ummatun ummad weeye, ummaddaasoo qad khalad tagtay, lahaa waxaa u sugnaaday ummaddaas tagtay maa kasabat hawaabu maa shay ajarkii shaygaasoo kasabad ay shaqaysatay, walakum idinkana waxaa idin sugnaaday maa kasabtum jazaau maa shay abaalkii baa idin sugnaaday shaygaasoo kasabtum aad shaqaysateen. walaa tus'aluuna laydinna weydiin maayo camaa shay xaggi shaygaasoo kaanuu ummadihii hore ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal falah. sida maaragtay idinkaba aan laydiin weydiinaynin wixii macnaa iyagaba aan loo weydiinaynin waxaad idinku camal fasheen wey. takhwiifkaas ku jira iyo tahdiidkaas dartiis yaa aayaddan loo soo celcelinayaa. iyadana labadaas aayadoodba in badan yay soo laalaabanayaan. dhammaanna waciidkaa shadiidkaaha ku jira oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cabsi gelinayo dadka macsida koraya. walciyaadu biاllaah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.